waxyaabaha sababa markaa ganacsiyadu inay guuldareystaan waxa ka mid ah inuu ganacsado ama qof ganacsiga maamulaya inuu iska indhatiro isbedelada ganacsigiisa kusoo fool leh. Isbedelada ganacsiyada ku yimaada ama marketka ha noqoto ama product ha noqoto ama serviceka laga ganacsanayo ha noqoto isbedelada ku yimaada xitaa shaqaalaha isbedelada ku yimaada. Marka isbedelada ganacsiga kusoo fool leh haddaad iska indhatirtid wuxuu ganacsigaagu ku dhawaanaya ama u horseedaysa inuu ganacsigaas fashilmo. waxaan soo qaadanay markaa mid ka mid ah shirkadihii isbedelada iska indhatiray waa shirkadda loo yaqaano Kodak. waxay ka mid ahayd qarnigii 20aad shirkadihii ugu waaweynaa ee soo saara kamaradaha lagu duubo lagu qaado sawirada iyo muuqaalada lagu sameeyo. Kodak waxaa la aasaasay qisada Kodak inta daba geeyo waxaa la aasaasay Kodak dhamaadkii qarnigii 19aad. laba nin baa aasaasay oo loo kala yaqaano George Eastman iyo Henry Strong. labada nin baa aasaasay. inaad la socotaan muujiye waagii hore muuqaaladu waxay ahaayeen ama sawirahan ama muuqaal labada hal noqdo waxay black and white bay ahaayeen cadaan iyo mid isku jira ahaayeen. weliba sawirada iyo muuqaalada waxaa lagu daawan jiray cajalado waaweyn oo marka qofka muuqaalka laga duubo muuqaalada marka dambe documentary markii la duubo filmka marka la duubo cajalad baa ayaa la sameyn jiray. marka Kodak waxa ay ahayd shirkadaha ugu waaweyn ilaa culimadu tilmaamaan boqolkiiba 80 1960 lixdameedii waxay haysatay market share boqolkiiba 80. filimada markaa muuqaalada saas ay sameyn jirtay warshad weyn bay ahayd oo Mareykanka ku taala oo muuqaalada sameysa iyo kamaradooyinka sameysa ahayd. 1975 markay taariikhdu marisay 1970 ayaa waxa yimid waxa loo yaqaan digital photography. على الأسف digital photography waa muuqaaladan iminka aynu arkayno iminkana la sii casriyeeyay arkayno maanta markaad muuqaal iska dubto moolkaaga iminka muuqaal iska dubtid aad markiiba helaysid after 1 second aad helaysid. digital photography gaas wuxuu soo baxay waxa la tilmaamo 1970 ay tilmaamo soo baxay. digital photography ga على الأسف ninkii aasaasay wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha Kodak. shirkadda Kodak wali wuxuu electric engineering buu ahaa. maalmaha ka mid ah buu la yimid madaxdii shirkadda hogaaminaysay aragtida ah digital photography ga way la yaabeen way u qaadan waayeen waxaan oo investment ah oo maalgelin ah oo warshado ah waxa loo sameeyay si loo soo saaro muuqaal. isna wuxuu leeyahay hal chip yar oo waxaas oo dhan isku koobsanaya. way diideen adigu maxay sababtay taasi in 2012 ay noqoto bankruptcy Kodak ilaa markii dambe saaxadda kamaradaha iyo saaxadda photography-ga laga waayay. waa markay soo bixiyeen 1975 markii la aasaasay digital photography waa markay soo baxayeen Sony iyo Canon Fuji Films kamaradaha loo yaqaano Sony kamaradaha loo yaqaano markay soo baxayeen. marka isbedelada ganacsiga ku soo fool haddaad iska indhatirtid waxa ku dhacay sidii Kodak ku dhacday. shirkado fara badan oo ayaa jira isbedeladaas iska indhatiray innovationka iyo ikhtiraacna waxyaabaha laf dhabarka oo aynu ganacsiga oo aran noqdo ganacsi jiray noqdo.